walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عاوي بشو تهاي محوهاي أفرتي بشي ديسمبر هل كان أنو ميكا تشوغنا وحان قوغباناي هول كان محوهاي نيو برعو شروين أو محوهاي أي سوي مادين بيلها سولمدو محوهاي هدي لاي كاريغايو وأي كاقي هادليين أريمها مقارن ساي دانو هودا وأي وغو هوريسو أرينتا مقارن ساي ودادا هوري وهاي قبيادا اسكو حدا بو هودلي إيو ودامكو فرنايسين بانو كورورني وناكسن وبركايسن وآدو بدن aad iyo aadna waxa la isugu afkartay in wadada ma garanaysaa la derder gariyo imka qabyada ah oo la dhameystiro hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idin salaamaya kulligiin bajaaliyada meela joogtaan bajaaliyada waxa laga rabaa inay ka soo qayb gasho contribution-ka muxuu ahay wadada oo aad iyo aad u soo derder gariso hadii ilaahay ka dhigo waayo meeshaas annaga soo aragnay waa meel aad u jid xun oo aad u rafaado oo dadku dhibaato badan ku qabo umuluhu ku dhintaan marka aad iyo aad waxaan idin ka codsanaynaa هذا تين شاليد الدبد شوكتي وجودها شوكتبه إن فريق كعدان إن شاء الله وضع سيد خساء إنه ما يسترق بيضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا وياسين شيري أو هل كان نيو برعو هوتيل كان نيو برعو اللي برعو كويا هلا أيان نشر وين كو قبرني شركاسي رجية دمر بوا اللي سوي مي كديدي سلمدو عقال هوين كني أنتم وحويا وحنو شركاسي وها ودارنا إن وددي isku xidhaysay wadaamago iyo buuhoodle la bilaabo la dardar geliyo wax badan baa nooga qabsoomay farraysin baanu ka sameynay guddi baanu ku dhisaynaa insha Allah guddi wadadu leedahay ayaa noo gabagabaa oo aanu insha Allah isla qaadanay carrabaabnay ashqaastii noqon lahayd guddida waxa weeyaan hawl aad muhiim ah ayaanu runtii halka ku qabanay oo aan loo kala maqlayn reerka waxgaradkiisii cuqaashiisii guddidiisii annagoo de qurba joogii dhowr nin ah oo halkan joognay oo ma garanaysaa hawshaas abaabuleynay si wacan bay hawshaas noogu dhammaatay waxaanu baaq aanu diraynaa yahay in qof kastoo deegaankan u dhasho ka soo jeeda uu ka qayb qaato wadadaa wuxuu ku tari karayo arin iyo adduun iyo fikir iyo haddii alla kuu royo talo wixii uu ku soo biirinayo wadadii waa insha Allah waa bilow waa la dhaqaajinaya biidmi Ilaahay sida ugu dhaqsaha badan muddo badan bay qabiyeen naga ahayd waxaynu sida dibadda u wadaan hawshana waanu ka warhaynaa si qurux badan baa u wadaan barakallahu fiikum baanu idin leenahay hawshani qofka hal pound ama $1 gashada iyo ka 100,000 gashada qof walba intuu gashaday wuu ka helayaa ifi aakhiraba waxaanu idinku dhiirinaynaa inaad ka soo qayb gashaan dadka gudihii jooga dhibaato badan baa ku dhacdo ka warhaysan abaaraa jiray dhib badan baa dhacay tabcaanimo badan baa jirta laakiin dadaal badan bay iyo niyad wacan bay hayaan waana u diyaar dad iminka ilaa kuntumeeya ama aan idhaahdo ilaa 60 baa shirkan ka soo qayb galay guddidii UK lafteedu way ka soo qayb gashay waxa la isla wada qaatay oo la isku raacay qof waliba uu maaragtay taabatay in wadada la dhaqaajiyo inagoo jaanisyo badan oo haysato ka faa'iideysanayna aynu dhaqaajino aad iyo aad baan idin salaamay meel aad joogtaanba waan idin wada salaamaya jazaakumullahu khayran baa le inta ka soo qayb gashay iyo inta ka soo qayb gali doontaba aadna waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maan raxiin halkan galabta waxaa ka dhacay shir ballaaran oo beesha Solomadow isugu timi qurba joog iyo qolqol joogba
shirkaas oo ay mihnadiisu daaranayd in wadada Wadaamago iyo Qorlugud isku xidha la dhagax dhigo la meeleeyo shirkaas oo ay ka soo qayb galeen cid waliba waxa aan halka ku qaadaa dhignay arrimo badan oo inaynu wadada halbowlaha inoo ah in aynu milgeeni muruqeeni maskaxdeena baynu gelino oo aynagu marka hore bilowno dabadeedna wixii kale ee la kaashino dawladda imika cusub ee dhalanaysa waxa la isla qaatay in si fiican oo beeshu isla afgaratay in wadadaas kama dambeyn maanta wixii ka dambeeya loo hawl galo oo la dhagax dhigo oo la meel mariyo qurbajoogina hawshiisi dhinac buu ka waday qolqojoog dhinac markaa waxaan idin leeyahay beesha Soomaaliya dhamaantiin dee ha loo guntado guda iyo dabadba wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ilma adeerayaal walaalayaal adeerayaal waanu idin ducaynaynaa kuwa ragga idinka yimi iyo idinkaba waxaanu idinku ducaynaynaa inuu ilaahay hawshaas ku jirtaan waa hawshii ahayd dawaa fi sabiilillah waa ku masaajid bay la mid tahay wadadu masaajid bay la mid tahay hawsha wadaan inuu ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro idinka iyo kuwa halkan nala joogay ee hawsha ku hawlanba haddii aanu nahay reerkii shirkan rag iyo dumarba maanta aanu halkan ugu fadhinay waxaanu ku go'aansanay in la dhaqaajiyo wadadii alaf dhabarta idinku u ahaydeen dadkii xoolo wax kastaba ha haystee qof waliba wuxuu mustacid ku yahay kii 40 u hadhay kii 30 u hadhayba inuu kaga qayb galo awoodiisa inuu kaga qayb galo maanta halkan dad ba dhulkoodii halkan ka sheegay oo dhulkii baanu gashanaynaa dad qaar baa daara gashan doona idinkana si awalba idinku amba faydne waxa hay farimaatino idinka idin ballamin maayo anigu idin ballamin maayo de idinka annagana riixayo idinma ballaminayo waxaan ilaahay idinka rajaynayaa inaynu ilaahay hawsha uu inoo ku dhameeyo wadadaas aynu bilownay ee Buuhoodle iyo Wadaamago isku xidhaysa inuu ilaahay inoo ku dhameeyo si khayr qabto oo degdega yani ilaahay inoo ka rajaynayaa idinkuna de sidii awalba hawsha ugu jirteen baanu idinka rajaynaynaa inaa si laban laabtaan baanu idinka wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdu alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh shir ballaadhan oo ay waxgaradkii iyo cuqaashii iyo culimaadudiintii iyo haweenkii beelweynta Solomadow ay ka soo qayb galeen ayaa noo qabsoomay oo New Burco noogu qabsoomay hudheelka New Burco alxamdulilah qabsoonka uu noo qabsoomay waxa weeyaan ilaahay baa mahadiisa iska leh waxaananu se mahad gaara u jeedinaynaa xigaalka qurbaha noo jooga ee ay ka socdeen Yaasiin iyo Ibrahim Dembil ay nagala joogeen ayaanu aad iyo aad ugu mahadinaynaa sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaanu wadadii bilowno oo ay noo bilaabanto wadadaas oo isku xidhaysa Wadaamago ilaa Buuhoodle wadadaasi waxa weeyaan waxaanu isla qaadanay ninkii reerkeena wax kala hadhow qoodhaaya xeradaaba jabtay inaanu kii neef bixinaya iyo kii daar bixinaya iyo kii dhul bixinayaaba inaanu wadadaas aanu bilowno ayaanu isla qaadanay ilaahayna waa la kaashanaynaa idinkana aad iyo aad iyo aad ragga qurbaha jooga iyo gabdhaha qurbaha jooga aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa waxa weeyaan fikirkaas saliimka iyo dhiirigelintaas allah idinla garab galo marka hore aad iyo aad baan dadkan qurba joogga ee jaaliyadaha reerka Solomadow dibadaha jooga waa idin salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu salaan ka bacdeen sida la idin sheegay dhalinyarada qurba joogga idin ka soo dhooftay oo kolley muddo shirar badan noo qabatay reerka shirar badan gaarsiisay sidii wadada loo bilaabi ahaa reerkuna waa la qaatay hadduu miyi joogo hadduu magaalo joogo hadduu dumar yahay hadduu rag yahay waayeel waa lala qaatay wadada in la bilaabo sababta wadadaasu waxay noqotay wado aad iyo aad dhibaato badan u leh dumarku ku dhinto umuluhu ku dhinto jidka ku dhintaan caruurtu ku baktido dumarka ku baktido martel haddii dhibaatooyin dhacaan dhaawacu jidka ku dhinto markaa waxaanu isla garanay wadada in la bilaabo oo si habsamiya loo bilaabo
yaanu annakuna ku boorino qoladaas insha allah qurba joog oo waad ka warhaysaa dee dunida waxbaa ka dhacay dadkii waa xoolo yareeyey xoolo yareeyee waxaa la rajaynayaa inuu ka qayb qaato wadada idinkuna sidaasi leeg meelaa joogtaan baa u dhaga nuglaada hawsha wadada oo sadaqad iyo toliimo iyo dee hawlo kaleba waa ku jiraan wadada nabaddaa loo bixiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baayac mushtari baynu leenahay wixii xoolo hadhay iyo baayac mushtariga iyagu iyo cuqaasha iyo waxgaradka kale solomadooba intuba waanu isugu tegaynaa qoladiina dibaddana dee barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen insha allahu bidmillaahi kariim dee idinkuna waa bilaabaynaaye dee hawshii sidaa noola socda nimankan arrinkana soo gaadhsiiyeena duco weyn bay galabta meesha kala kaceen kolley la aftax galabta inkastoo aan aftaxu ballaadhnayn wax lagu xoolo la tirtiraab jagooyin la bilow habla isqorqore insha allahu dee baayac mushtari ballaadhan baynu leenaho ina lulaaba ka mid aho siilaanyo wuxuu aniga afkaygaga yidhi 580,000 oo dollar baan diyaaraddii go-aan baag aan u saaray buu yidhi ilaa ceergaaba ilaa hargeysa go-aan baag inay ku soo celiso afkaygu igu yidhi ina lul marka insha allahu dee baayac mushtariyiinta waaweyn ayaynu leenahay rag badan oo maalqabeen oo yaryar baa jira insha allahu dumarkiina kaca baanu noo fadhiga ka kaca insha allahu hawshaasi wiigan inay noo soo afjarto ayaanu ilaahay ka barinoo ku ducaysanay oo ay dhaqaaqo idinka yimi qurba-joogga ah dhalinyarada ah ee waa wanaagsan aad iyo aad u shaqeeyey dee sidooda kale balaa u shaqeynaysaa idinne halkan waxaa la isla qaato islamadoo isla qaatay wadada naf iyo maaltoo aan lagu kala hadhin aan waxba lala hadhin dadku waa abaaroobay abaaraha helay xanuumaa helay waa xoola dareeyey haddana waxaa la waxba yeelan yeelane waxa inoo hadhay waddada aan gelin markaas oo kale dee idinkuna waxba ha la hadhin wixii haysaan iyo waxa haawanaysaanba wadada ku soo miisa oo nala soo hadla oo la soo hadla inamada idinka yimi oo hawsha aan reer isqabsano oo dhammayno oo wadada nabadda aad iyo aad baanu salaamaynaa deegaankan dee dadka u dhashay waa waddadii nabaddaa loo bixiyey go-aankeedii iyo gebagabadeedii waa la isla qaatay muhim bay noqotay mid bay noqotay nabadeed hadday nabadda tahay hadday tansiilaadka kale tahay waddadaa waxaa la isla qaatoo caawa lagu go-aansaday oo ku go-aansaday beelaha deegaankaa yaallaa inay waddadaa bilaabaan dee nin cid kastana aakhiriya adduunkaba wuu ku liibaanayaa ciddii wax gashata aad iyo aad baanu maxaanku idhaahdaa idinku gubaabinaynaa idinku boorinaynaa waanu idin ducaynaynaa soo gashada waddadaa wax haddii ilaahay ka dhigo raggan ka shaqaynayaana jasaakum allahu alkhayr in badan baanu ugu mahadnaqaynaa raggan qurbaha ka yimi ee dhallinyarada ah ee sida fircoon uga shaqaynaya idinna u dhega nuglaada annagana noo daaya gudaha haddii ilaahay ka dhigo waxba la hadhi mayno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inay taabo gasho salaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wadadu waa muraayadii